Somaliland ayaa waxay isu diyaarisay ka hortagga caabuqa la yiraahdo corona oo ka dilaacay wadanka Shiinaha oo kuna dilay in ka badan 100 qof kaasoo laga cabsi qabo inuu ku fido dunida oo dhan. Madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi oo maanta kormeerayay gegida diyaaradaha ee magaalada Hargeysa ayaa waxa uu amar ku siiyay saraakiisha hay'adda duulista ee Somaliland in la sameeyo goobtii lagu xakameyn lahaa haddii garoonka ay soo gaadhaan dad qaba caabuqa corona. maanta muhiimadda ugu weyn halkan aanu joogno waxa weeye gurmadkan caafimaadka marka hore qolada airportka waxa laga rabaa inay samayso control ama tendooyin dhisa ama hangar dhisa meel dadka lagu hayn karo la deganaan karo oo degdeg u martiisa waa la rabaa dhulkii waa haysaan dhaqaalaha la soo galay laakiin waa bilaabaysa halka waxa jooga taliyihii socdaalka iyo taliyihii booliska mar haddii gurmadka ciidan u bal rabaa waxa la rabaa airportka rakaab ka soo degaya inanta neerasi markay firtaagta wixii ay doonayeen loo fuliyo qofka aan eegno wala iska riixay yarantay yana wax shaqeynaysa marka waxa loo baahan yahay taliyaha immigrationka iyo booliska iyo ciidamadu inay aad gurmadkan u galaan oo baastarska soo degaya ay controlkooda qof walba in la hubiyo maxmedeeyay kale deetana wixii instructions amarka dhakhaatiirta la fuliyo waayo waxa la isma taaban karo laba salaami karo looma dhawaan karo marka dhakhaatiirtu ma khatarta galaysa adiga waxa ninka dusha ka qabata marka ma jiro sas khalkhal ma jiro leeyahay khalkhal ma jiro laakiin amar baa jiraya ila wax walba laga baqayaa waa inuu halka wadadu si la falay wax u fulaa dadka kale ee ama soo dhaweynaya ama cusbal ka shaqeynaya inta ay dhakhaatiirtu u xadideen soo dhaafo waa ku ekaada ila khatar loo gali maayay dadkeenu hadii jeer waa kuwan dad jirjiira una isu dhawaadee amar diiday ee waxba u jiray marka waxa laga rabaa dadka hawsha maamulka iyo shaqaalaha airportka qofka caafimaadka dhakhtarka ay arintan khatarta ay soo galaya waa in ishaaradiisa la maqaa halka qofku joog xarig qofka meel loo xiro si ay nabadgelyadeena u qabano taynu halkan maanta u nimid inaan umada gaarsiino waata khatar inama soo gaarin laakiin adduunku waa isu furay marka inuu taxadir fara badan oo aan cunuf lahayn ee maamul la galo ayaa laga rabaa oo bartan jilawaalkii laga soo bilaabay laga soo galay adnaamka raacdaan dhakhtarada halkan waa kala dhisnaa emergency tendooyin keenaya waa la dhis gurmadkana diyaar baa loo wixii gurmada saacada haddii aan dhaqaaqno inta intay tahay kawashkash gelmin waa dalku mar walba emergency leeyahay dalku mar walba emergency diyaar buu yahay dagaal baa dhici kara duufaan baa dhici kara dhulgariiraha dhaca xanuunada dilaaca marka qaran waliba wuxuu leeyahay diyaar garowgiisa emergency daawashadaadu waa muhiim meel kasta aad joogta daawade fadlan ka mid noqo ku dhawaad 1 milyan ee ku xidhan bartayda Facebook si aad uga mid noqoto like gare sidoo kale subscribe gare bartayda YouTube-ka ee Saab TV si aad uga mid noqoto dadka ugu horeeya ee hela wararka barnaamijyada iyo warbixinaha aan idin soo gudbino meel kasta aad adduunka daafihiisa ka joogto la soo deg abka Saab TV sidoo kalena booqo website-ka saabtv.com fadlan nagu xidhno adeega cusub ee shirkadda Dahabshiil iyo Idahab casriyeynta hanaanka cusub ee xawilaadda Dahabshiil haddaba macmil adeegan cusub ee casriga ahi waxa uu ku sahlayaa in adigoo jooga gurigaaga ama goobtaada shaqo aad lacag ugu xawishid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida